maanta waxaan idinla wadaagayaa oo ku saabsan yahay ciwaanka oo maanta rabo inaan sharxo sidee applicationka Wafi oo ay leedahay shirkadda Hormuud iyo Salaam Bank loogu sameeyaa account to account, sidee lacag loogu diraa account to account anoo isticmaalaya Wafi app. marka hore waxaad raadin doontaa oo aad soo kicinaysaa applicationka Wafi. waa inuu kan noocan ku degsan yahay ayaa shardi ah. waad ku dhufan doontaa, kadib waxaad samayn doontaa oo aad soo dooranaysaa calaamadda dollarka ah oo waxaan ka wadaa waxaad gelaysaa Wafi si aad u gasho. marka calaamaddaas dollarka ayaa dooranaysaa oo aan ku calaamadeeyey, and then waxaad samaynaysaa passwordkaaga EVC ayaad halkan gelinaysaa. anigu waan idinka qarinayaa, laakiin qof walba waa yaqaana afartiisa god oo passwordka waa yaqaanaa. waan qarinayaa for security purpose. geli passwordkaaga afarta god. pinkaaga markaad geliso waa kaas saad u jeedo. waxaa kuu soo baxayo qaabka loo galo. markaan aad kasoo gudubto facekan ayaa kuu soo bixi doona. ishan hadda meesha ka muuqato oo saaran tahay calaamadda dhexda calaamad ay ka saaran tahay waa balansigaaga EVC-gaaga wax ku jiro ayay cadaynaysaa. haddii aad kili ku dhahdo ama aad taabato balansigaaga ama haraagaaga ayaad arkaysaa. marka account to account markaan rabo inaan akoonkayga Salaam Bank markaan ka wareejinayo oo akoon kale oo uu leeyahay qof kale oo Salaam Bank oo aan ugu shubayo lacag oo loo yaqaano account to account, sida loo sameeyaa marka number 1 send ayaa dooranaysaa. marka send aan riixo information ayaa soo bixi doona oo transaction badan oo aan sameeyay waan ka qarin doonaa, laakiin stepka muhiima inaad ila fahanto. waxaad riixaysaa send, kadib waxaad dooran doontaa meeshan ay ku qoran tahay deeqtoon saa u jeedo. akoonkaagana bishardi waa inuu kuu furan yahay. akoonkaaga Salaam markii aad soo furanaysay waa inaad codsato adeegan deeqtoon inuu kuu furan yahay. intaas kadib waxaad dooranaysaa deeqtoon. markaad doorato transaction ayaa soo baxayo, waan kaa qariyay. kadib waxaad sii dooran doontaa meeshan ay ku qoran tahay add beneficiary meesha ku qoran tahay aad click ama aad dooranaysaa. meeshaas kale marka waxaad gelinaysaa qofka aad lacagta u dirayso akoonkiisa. kolley inta markaad geliso magac akoonkiisa waxaad dooran doontaa verify beneficiary, meeshaas ay ku qoran tahay aan ku calaamadeeyay. kadib meeshan oo hoose waxaa soo geli doona magaciisa 35. hadda waan geliyay akoonka soo ujeed. waxaad dooranaya add beneficiary. waxaa kusoo bixi doona waa kaas. meeshan waxaa kusoo bixi doona qofka magaciisa saddexan oo leh akoonkaas iyo akoonkiisa lambarkiisa ayuu kusoo qorayaa. kadib waxaa leedahay submit. markaa submit dhahdo wuxuu ku keenayaa halkan, inta ayuu ku keenayaa. qofka waxaad dooran doontaa kabacdi markuu listigan wuxuu kusoo gelin doonaa qofka aad soo gelisay akoonkiisa iyo magaciisa ayaa inta kaga soo baxaya. kadib pay meesha ay ku qoran tahay halkan ayaad dooranaysaa pay ayaad dooranaysaa. halkaana waa wallet, halkan waa bangi waa inay ku dooran tahay. kadib inta maxaa samayn doontaa waxaad gelin doontaa binkaaga ayaad gelinaysaa. inta information kale isagoo aad diyaarsan bangi binkaaga oo 6 god ahaa ay gelinaysaa. ana markaa ka qaranaya for security purpose. kadib inta waxaad gelin doontaa lacagta aad u dirayso qofkaas. waxaan gelinayaa intaas. kadib inta ayaad imaanaysaa. tusaale faahfaahin wax la iska gelinaya muhiim ma aha. account to account. kadib waxaad dooran doontaa meeshan ku qoranta submit. kadib inta muxuu kusoo qorayaa account numberkii iyo qofkii loo dirayay iyo lacagta aad u dirayso iyo lacagta ay helayso. markii intaas wali wuxuu ku leeyahay hubi. kadib confirm aad leedahay.
muxuu ku leeyahay marka si loo fuliyo waxaa ku soo dhici doona lambarka uu kugu xiran yahay akoonkaaga Salaam, lambarka aad ku xirtay haddii aad gacanta ku hayso wuxuu ku soo diri doonaa OTP wax loo yaqaan. OTP-ga markii uu ku soo dhaco oo mobilkaaga ama lambarkaaga uu soo dhaco waxaa leedahay okay, marka inta ayaad gelinaysaa meeshaas OTP-ga soo dhacay waa diyaarsan yahay. kadib waxaa leedahay submit, waa isku dhamaatay. saas ayaad lacagtii 200 ahaa u wareejisay. marka intaas ayaa muhiim ah inaad nala fahanto. marka account to account ayadoo la isticmaala waafi dhowr qof ana weydiisay, saas daraadeed marka waa kaas sida loo wareejiyo.